ciyaarahankan xulka qaranka Faransiiska u dhashay ayaa ku soo biiray kooxda Camp Nou ku ciyaarta isagoo ka yimid Atletico Madrid xilli ciyaareedkan laga soo gudbay isagoo oo ku yimid adduun dhan 108 milyan oo lacagta boonka ah walow kooxda uu ka soo tagay ay sheegtay in 120 milyan ciyaaryahankan ay ku fasaxaysay Barcelona ay ku booday si walba ahaataba 4 gool ayuu dhaliyay xidigan 15 kulan oo uu u ciyaaray Griezmann ayaa sidoo kale cadaadiska soo fuulay waxa uu noqday mid u muuqday in uu guul darro la kulmi karo ciyaaryahanka kadib taageerayaasha kooxdaasi oo kulamo badan oo ay u soo daawasho tageen ay la kulmeen waxyaabihii aysan filaynin isagoo la hadlay wargeyska Marca waxa uu sheegay in kooxdu ay dabcan markii uu ku soo biirayay oo la kulmay caqabado aad markaas u waaweyn oo adag laakiin waxa uu ku nuxnuxsaday in wali uu waxyaabo badan ka baranayo isla markaana uu ogyahay in Barcelona la qabsigeeda ay tahay wax aad u adag marka kuugu horeysa aad ku soo biirayso haddii aan markaasi ka ciyaaray dhanka dhexe ee weerarka ama garbaha waxaan dabcan dareemayaa isku dheelitirnaan aad markaasi u sareysa waxaan ka ciyaaraa inta badan dhanka hore ee weerarka iyadoo ay ugu lamaansan yihiin xidigo oo kamid ah Lionel Messi laakiin waxaa qasab ah inaad adapted ama la qabsi badan aad ku sameysay kooxda marka dhanka hore ee weerarka kaga soo muuqanaysid warbixinada isku mid ah oo ciyaaryahankan laga qoray tan iyo markii uu kooxda ku soo biiray ayaa soo jeedinaya in kooxda Barcelona dalabka ciyaaryahankan ay ka gudbisay uusan u muuqan mid markaasi noqon kara mid ay ku aflaxaan maadaama laga cabir qaatay ciyaaryahankii darbada sida markaasi qalabsan u tuuri jiray Philippe Coutinho oo kooxdaasi ay la wareegeen dhowr sano ka hor laakiin haddana ay ku soo dabaaleen jawi aan looga baran ciyaaryahankaasi oo tan iyo markii Liverpool uu ka tagay hanaankiisa ciyaareed u isbedelay waxaana inta badan warbixinadan lifaaqooda qayb ka mid ah lagu lifaaqay in ciyaaryahan Griezmann uu la mid noqon karo wadiiqadii uu hore u maray Philippe Coutinho marka waa carabka lagu dhuftay ciyaaryahan Lionel Messi oo awoodda ugu badan ku lahaa in kooxda Barcelona uu ku soo biiro marka laga cabir qaato sida tababar Ernesto Valverde ugu qanacsanaa ciyaaryahanka marka si guud loo eego in kooxda Barcelona ay qolka labiska ciyaartooyda dhamaanba ay isha ku hayaan xidigan ayaa haddana waxay markaasi keentay in ugu dambeyn 108 milyan ay akoonkooda ka bixiyaan kooxda Blaugrana ugu dambeynna ay ka dhaadhiciyaan maamulka Atletico Madrid in ciyaaryahankan ay ka soo qaataan kaasoo sababtayba in guulaha ugu badan ay ka gaareen maadaama 6 bilood oo horyaalka ka dhiman uu boggiisa fariimaha gaaban ee Twitterka uu ku sheegay in uu rajeynayo inuu kooxdiisa ka tago taageerayaashiisa qalbiga wanaagsanna uu macsalaameeyo